wax kastaaba way isbeddeleen sidoo kale adduunku wuu horumarayaa waxyaabihii mustaqbalka la rajaynayey maanta waxay isku beddeleen xaqiiq lagu nool yahay sidee ayaynu ku gaadhnay horumarkan aadka u cajiibka sidee ayuu caalamku u horumariyey dhaqaalaha kaasoo wakhti kastaba isbeddelaya sidoo kale sidee ayaanu barannay macluumaadkan xilli kasta isbedbeddelaya waxaa jira goobo aad u horumarsan iyo magaalooyin hadda la dhisaayo oo lagu talagalay mustaqbalka waxaannu doonaynaa wax soo saar inaannu samayno kaasoo saamayn aad u ballaadhan leh snowboom maalin maalmaha ka mid a wuxuu noqon doonaa shay ay ku tiirsan yihiin shirkadaha cuntada soo saara horumarka ay gaadhay singabuur waxa uu 5 sanno ka horreeya caalamka magaaladani waxa ay xayisiis u tahay mustaqbalka tanina waa magaalada mustaqbalka mustaqbalka adduun weynuhu waxa uu ku xidhan yahay sida ay u nool yihiin reer magaalku dadweynaha caalamka marka laba loo qaybiyo qaybi waxa ay ku nooshahay magaalooyinka laakiin tiradoodu way sii kordhaysaa tiradaas sii badanaysa waxa ay sababaysaa fursado cusub sidoo kalena waxa ay keeni kartaa inay yimaadaan caqabado magaalooyinka hadda lagu nool yahay sideebay u horumari karaan si loogu noolaado beritoole in dadkan sii badanaya ee ku nool magaalooyinka loo sameeyo masaafooyin ay ku noolaan karaan waa caqabado hortaagan dawlado fara badan hawshanna dhibaatada ay leedahay ma fahmayso cid aan ahayn hay-adda qorshaynta deegaanka ee waddanka singabuur waana wakaaladda ka mas-uulkaa 80% ee dhulka la degan yahay kaasoo ku yaalla magaalada ugu saxmadda badan leh ee dalka singabuur waxaan tababar ku soo qaatay nashqadaynta sidoo kale waxaan master ka sitaa qorshaynta sidaa awgeed waxaan qorsheeyaa nashqadaha sannadkii 2010 doctor janse waxay hay-adda qorshaynta guryaha ka caawisay inay dhisaan guryo yaryar taasoo ka caawisay magaaladan ay iyadu jeceshahay inay horumarto inkasta oo ay caqabado badani ka hor yimaadeen dhammaan cabirka jasiiraddani waxay leegtahay xaafad yaroo ku taala London waxaanan guryo u dhisaynay 5.7 milyan oo qof sidoo kale dhulka iyo dhaqaaluhu labaduba way nagu yaraadeen taasina waxay ahayd caqabado aad u adag laakiin muddo sanada gudahood waxaan awood u yeelanay inaan horumarno Singabuurna imika waxay ka mid tahay magaalooyinka lagu noolaan karo ee qaaradda Asia markii ay yareyd doctor janse magaaladani way ka duwaneyd sidan ay imika tahay tirada dadweynuhuna imika way 3 jibaarantay dakhliga wakhtiga dalka soo gali jirayna waxa uu dhigmayay 1% imika dakhliga soo gala dhismuhuna uu ku yaraa laakiin muddo 50 sano gudahood magaaladan aadka u yar waxa ay isku beddeshay si cajiiba hay-adda qorshaynta guryuhuna waxa ay dhistay 1 milyan oo guri waxaanay ku guulaysteen mashruuca guryaha la wada degan yahay ee caalamka hay-adda qorshaynta guryuhu waxa ay deydaysaa xal aad u horumarsan si ay guryo ugu hesho muwaadiniinta ku nool dalka Singabuur iyo si ay u horumariso noloshooda 10 sano ee soo socda waxaan leenahay kombiyuutar aad u horumarsan kaasoo naga caawiya qorshaha horumarinta deegaanka tusaale ahaan Singabuur waxay ka mid tahay dalalka ku yaala dhulbaraha sidaa awgeed waxaan doonaynaa inaan ka faa'iidaysano nimcadaas oo dhan kombiyuutaradu waxay naga caawinayaan meelaha laga dhisayo wadooyinka iyo goobaha loogu talagalay dadweynaha horena kombiyuutarku wuu nooga caawiyay Singabuur waxa ay dejisatay qorshe aad u dheer qorshahaasna waxa uu yahay mid muhiim ah waayo waxay dejisatay qorshe soconaya muddo 30 sano ah taasina aad bay u muhiim tahay sababtoo ah waxaanu helaynaa dhul aad ballaaran kaasoo naga caawinaya qorshahayaga horumarineed Singabuur waxay dejisay qorshe 10 sanadooda
dowladaha aadka u yaryar isma weydiiyaan waxay dhisi lahaayeen balse waxay isweydiiyaan halkii ay wax ka dhisi lahaayeen. dadka ka mas-uulka ah horumarinta magaalooyinka Singapore sidoo kale waxa ay mas-uul ka yihiin qorsheynta dhulalka si loo horumariyo Singapore. waana hawle dhib aad u badan taasoo la doonaya in la xalliyo. anigu waxaan ahay qof reer magaaladana aad ayaan u jecelahay, sidaa awgeed ayaan uga shaqeeyaa qorshaynta magaaladan, waxaana sii qorshaynaynaa 20 sano ee soo socda. Andrew iyo wakaaladda horumarinta magaaladu mararka qaar waxa ay dhul ka sameeyeen biyaha dushooda, qorshahaasoo loo yaqaano qorshaha samaynta dhul cusub. laga bilaabo 1965 markii ay Singapore xornimadeeda la soo laabatay, waxa ay qorsheeyeen dhul kaasoo ah 23% dhulka ay Singapore ku fadhido hadda. taasna waxaa tusaale u ah dhismahan aadka u cajiibka ee soo jiita caalamka. waana dhismaha Marina Bay ee ku yaala Singapore. waa mashruuc aad u cajiib badan kaasoo la sameynayay 10 sano. markii aan bilaabay aan la shaqeeyo wakaaladda horumarinta magaalada, Marina Bay waxay ahayd dhul cusub oo cidla ah. goobtaana in laga shaqeeyo oo la hormariyo waxaa la bilaabay 15 sano ka hor. Andrew waxa uu ka mid ahaa dadkii qorsheeyay Marina Bay, sidoo kale waxa uu ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay dhisitaankiisa. dhismahani waxa uu ka qayb qaatay horumarka Singapore. dhismahana waxaa loogu talagalay si loo daboolo baahida muwaadiniinta. xaafadaha loogu talagalay ganacsiga waxa kaliya ee ku yaala waa xafiisyo uun, xafiisyadaasoo laga shaqeeyo 9 ilaa 5 wiigii waxaa laga shaqeeyaa 5 cisho. sidaa darteed markaanu Marina qorsheynaynay waxaan ugu talagalnay inay cid kastaba isticmaali karto. dadka Marina Bay isticmaalaya waxa ay goobtan joogi karaan 24 saacadood ee wiigiiba. si loo dhiso dhismayaasha Marina Bay, wakaaladda horumarinta magaaladu waxay u baahatay dhul. Singapore oo dhulkeedu aad u yar yahay awgeed waxay isticmaaleen dhulka hoostiisa. si loo daboolo adeegyada bulshada waxa ay sameeyeen godad la mariyo korontada iyo biyaha. sidoo kale waxa ay dhulka hoos mariyeen goobo ganacsi iyo sidoo kale wadooyinka ay gaadiidku maraan sida tareennada iyo gawaadhida, iyo sidoo kale wadooyinka ay maraan gaadiidka xamuulka sida. nidaamkan laga sameeyey dhulka hoostiisa waxaa loogu talagalay in lagu daboolo baahida bulshada Singapore 15 sano soo socda. laakiin dadka Singapore mustaqbal intaa ka sii fog ayay hiigsanayaan, taasoo ah magaalo loogu talagalay mustaqbalka. aniga ilama aha inuu yahay mustaqbalka Singapore in la kordhiyo wadooyinka ay marayaan gaadiidku. sidoo kalena waxaan doonaynaa dhul ay dadku ka heli karaan hawo nadiifa. Jason Bomberay waxa uu magaaladiisa la doonayaa mustaqbal fiican. waxa uu ku guuleystay jaahisadda nashqadeynta kadib markii uu sameeyey gurigan oo la yiraahdo Bee House. nashqadaha uu sameeyana waxay ka turjumayaan sida ay Singapore u ekaan doonto 50 sano soo socda. waxaan ku fikiraynaa sida aan u dhisi lahayn wadooyin cusub iyo meelaha ay maraan gaadiidku, kuwaasoo aad u horumarsan. fooqyadan hadda dhisanna waxaannu rajaynaynaa inaan ku dul beerno dhir. magaaladu haddii ay noqoto wada fooq, baahida loo qabo wadooyin ay maraan gaadiidku way yaraanaysaa. habka loo isticmaalo gaadiidka magaaladuna waxa uu wax weyn ka bedeli doonaa habka loogu nool yahay magaalada. laga yaabo inaad isweydiinayso fooqyadaa dhaadheer dadku say u fuulu lahaayeen, laakiin 50 sanno kadib waxaa horumaraya diyaaradaha yaryar. sidaa awgeed dadku waxay isticmaali doonaan diyaaradaha yaryar si ay xagga sare u tagaan. sidaa awgeed xafiiskaagu iyo gurigaagu iyo beerahaagu waxay yeelan doonaan meel ay ku degaan diyaaradaha daroonisku, waxaanaad yeelan doontaa darooniskaaga ku khaaska ah. laga yaabaa inuu fikirkaasi suurto galo 10 sano kadib. haddana tiknoolajiyadda daroonisku aad ayay u horumaraysaa, waxaanay noqon karaan gaadiidka lagu isticmaalo magaalooyinka mustaqbalka. dowladda Singapore waxa ay soo dejisay qorshe ay ku horumarinayso darooniska sida ay ugu isticmaali lahaayeen magaalooyinkan ay bulshooyinku ku soo badanayaan. Skyway waa mashruuc u gaara Airbus, waxaanay dadku ugu adeegayaan iyagoo isticmaalaya drones. waa adeegay bixinayeen gaadiidka kale oo loo bedelay drones.
droniskan isticmaalayno waxaa si gaara u sameeyey shaqaalahayaga waxaana lagu sameeyey waddanka singabuur marka ay daroontani hawada gasho si aanay u xumaan amaba aanay u istaagin waxaa loo sameeyey dhowr brograam oo haddii hal sistem uu shaqayn waayo uu mid kala shaqeeyo daroontuna ay tagto halkii la doonayey miisaanka imika daroonkani uu qaadi karaa waa 4 kilogaram sababtoo ah 4 kilogaram waa cabbirka ay dalbadaan 80% macaamiisha wax naga soo dalbanaya daroontu marka ay tagto goobtii loogu talagalay macmiilku waxa uu gelinayaa koodh si uu u helo agabkii uu dalbaday macmiilkuna waxa uu dalabka heli karaa xilli kasta sidaasaad dalabkaaga u helaysaa daroonkuna waa uu iska noqonayaa shirkadda airbus waxay doonaysaa magaalada inay wax badan u qabato sida tagsi duulaya oo kale mashruuca skyway waa mashruuc horumarinaya fikradaha waana mashruuc loogu talagalay mustaqbalka isla markaana si loo sameeyey gaadiid duulaya kana shaqaynaya magaalooyinka oo dhan singabuur waxay tijaabinaysaa oo ay ka fikiraysaa tallaabooyin cusub kaasoo ah isku-gooshidda magaalooyinka waxaana laga yaabaa inay daroonisku ka qayb qaataan isku socodka laba goobood oo kala duwan laakiin caqabadaha magaalooyinka ka jira intaas way ka adag yihiin waayo waxaa adag sida loo safro iyo goobaha wax laga dhiso in cunto iyo biyo loo helo malyinis dadkaasoo badankoodu joogaan magaalooyinka waxa weeyaan caqabadda ugu weyn ee haddayna hor taalla tirada dadka magaalada ku nool oo sii badanaya awgeed adduunku waxa uu waajihi doonaa caqabado fara badan sida in la helo guryo la dego gaadiid iyo weliba cunto mustaqbalka tirada dadku marka ay farabadato cuntadu way yaraanaysaa dalka singabuur oo dhulkiisu aad u kooban yahay mushkiladdaasi waa mid hadda haysata iminka 93% raashinka singabuur waa loo soo dhoofiyaa sababtoo ah ma haystaan dhul ku filan oo ay raashin ku beertaan benjamin iswan waxa uu singabuur yimi isagoo injineera si uu uga shaqeeyo mashruuca marina bay waxaanu magaalada ka helay fursad shaqo kadib markii uu arkay dhibaatada ka jirta dalka singabuur waxa uu ka caawiyey singabuur mushkiladdii haysatay oo ahayd raashinka waxaanu soo saaray si cusub oo cuntada loo beeri karo taasoo ku faaftay singabuur iyo magaalooyin kaloo fara badan waxaannu beernay beero aan annagu maamulayno sida ay u baxayaan beeraha waxaan u samaynay cimilo u gaar ah taasoo noo saamaxday inaannu beero ka samayno meelo aan suurtagal ahayn singabuur nidaamka casriga ah ee noocan oo kale ah iyada ayaa ugu horraysa waana dalkii ugu horreeyey ee sameeya beeraha noocan oo kale ah taariikhdu markii ay ahayd 2012 waxaanay awood u leeyihiin inay beera ka dhex sameeyaan guri dhexdii iyagoon u baahnayn cadceed iyo sidoo kaleta ciid waxaannu samaynay waxa weeye qalabkan kaasoo ay shaqadiisu tahay inuu midhaha dhex geliyo afargeeskan halkaana waxaa ka soo baxaya midho 100% wanaagsan qolkan waxaa loogu talagalay inay midhuhu ku baxaan kadibna halkan lagu kaydiyo ka hor intaan la geyn qolka lagu rushaynayo ee midhaha laga gurayo qolalkan beeraha aadka u waaweyn ah waxaa loogu talagalay nidaamka casriga ee beeraha in loo beero habkan casriga ee wax loo beeraya waxay beeralayda u saamaxaysaa inay midhaha guran karaan xilli kasta oo ay doonayaan kaasoo ka duwan xilligii ay midhuhu soo guyi jireen annaga ayaa u maamula heerkulka dhirtan sidoo kale annaga ayaa maamula iftiinka ku dhacaya waxaannu xadidnaana ogsajiinta biyaha ku jirta iyo sidoo kale kaarbonkaba qolalkan xidhan ee loogu talagalay waxbeerista waxay soo saarayaan raashin taariikhiya istraberigani waxa weeye kii u horreeyey ee laga beero sangabuur gudaheeda qolkanna waxaa lagu beeraa 3 nooc oo kala duwan waxyaabaha aannu ka barannay dhirtan heerkulka aanu maamulayno waxaa ka mid ah inaannu waxyaabo badan ka beddeli karno midhaha soo go'aya weliba annagoon isticmaalin wax maaddooyina oo cusub waxaannu midhaha ka dhigi karnaa midho aad u macaan waayo dadka iibsanaya ma jecla inay iibsadaan wax qadhaadh midhaha waxaannu ku beernaa dhismooyin aan ugu talagallay dhismahaasoon xadidnay heerkulkiisa iyo sidoo kale iftiinka ku dhacaya taasina waxay noo saamaxday inaannu midho wanaagsan soo saarno
beeraha noocan oo kale ah khudradda ka soo goda laguma talagelin oo keliya tahay in singabuur lagu isticmaalo, balse sidoo kale waxaa loogu talagalay inay waxtar u noqoto magaalooyinka cusub ee mustaqbalka. qaabkii hore ee wax loo beeri jiray waxa wax lagu beeri jiray dhul aad u ballaadhan oo meel bannaan ku yaalla, balse qaabkani waxa uu saamaxayaa in wax lagu beeri karo dhisme gudihii, dhismahaasoo noqon kara mid aad u dheer. in fooqaqa dhaadheer dhirta lagu beero aad ayay sangabuur muhiim ugu tahay, sababtoo ah dhul aad u baaxad weyn ma leh. sidaa darteed waxaannu dhisi karnaa fooqyo aad u dhaadheer si aan ugu dhex beerna dhir. markaannu eegno qalabkaannu haysanno, waxaannu soo saari karnaa cunto ku filan dalka oo dhan, cuntadaasoo lagu beeray dhismayaasha ku yaalla sangabuur gudaheeda. in la helo cunto ku filan aad ayay muhiim ugu tahay magaaladan, taasoo la quudanayo sidoo kalena laga helayo caafimaad. marka uu dadku waaweynaado inuu ku dhaco macaanku waa wax badanaa lagu arko magaalooyinka waaweyn. singabuurna sida magaalooyinka waaweyn oo kale waxay u baahan tahay inay bulshadoodu isticmaasho cuntooyin caafimaad qaba. waxaannu keennaa cuntooyin sidoo kalena cabbitaanno, kuwaasoo bulshada ka caawiya caafimaadkooda, howlahay qabtaan iyo sidoo kale qaabdhismeedka jidhkooda. waxaa laga yaabaa inaad la yaabto nashqadahan cajiibka, balse waa cunto la cuni karo. waxaana samaysay doctor liman wile, waana saynisyahanad ka shaqaysa mid ka mida goobaha cuntada lagu sameeyo ku yaalla singabuur. iyadoo isticmaalaysa teknolojiyaddii ugu dambaysay, waxay soo saartaa cunto nafaqaysan taasoo loogu talagalay dadka da'da waaweyn leh ee ku nool dalka singabuur. qof kastaba waxaan u soo saarnaa cunto leh nafaqada inta uu u baahan yahay. qof kastana cunnadaannu siinaa waxay ku xidhan tahay hawsha uu qabto iyo xaaladda caafimaadkiisu halka ay ku sugan tahay. si ay riyadeedu u rumowdo, doctor lee waxa ay la shaqaysay ninka injineerka ah ee lagu magacaabo mark worm si uu u sameeyo qalab sheegaya xaddiga nafaqada ah ee uu qofku u baahan yahay. qalabka lagu hormariyey shirkadda sonama oo magaceeda la yidhaahdo interson waxa ay la shaqaysaa saacaddan ayaa xogta u diraysa moobilka, kadibna moobilka ayaa baadhitaan ku samaynaya xogta, isla markaana waxaa loo dirayaa kombiyuutar soo saaraya nafaqada u baahan yahay qofku. nafaqada uu qofku u baahan yahayna waxaa loo gudbinayaa oo soo samaynaya qalab 3D-ya. sidaa awgeed cuntada uu ka helaya nafaqada uu u baahan yahay qofku waxaa soo samaynaya qalabka 3D-ga. qorshahan ay soo saartay doctor lee waa kii ugu horreeyey ee laga sameeyo singabuur iyo caalamka oo dhan, kaasoo qof kasta u soo saaraya xaddiga nafaqadaha ee uu u baahan yahay. qalabkan 3D-gu wuxuu naga caawiyaa inaannu soo saarno xaddiga nafaqaynta aan u baahannahay. waxaannu soo saarnaa sida bariiska iyo digaaga oo ay ku badan tahay kaashiyamtu, iyo cutooyin kale oo laga helo bitashiyam, kuwaasoo si gaara loo soo diyaariyey. inkastoo uu qalabkani weli tijaabo ku jiro, haddana waxaa laga leeyahay rajo wacan, waayo waxa uu soo saarayaa cuntadan oo laga helo nafaqo, taasoo kordhinaysa caafimaadka kana hortegaysa xanuunnada. markaannu ka helnay qof kasta xogta nafaqa ee uu u baahan yahay, waxaannu helaynaa liis oo ah inta nafaqa ee loo baahan yahay, kaasoo uu samaynayo kombiyuutarku. shaygaasina waa shay aad u muhiim ah oo loo baahan yahay mustaqbalka, waayo waxaa la cunayaa cunto caafimaad badan halkii laga cuni lahaa cunto kuu keenaysa caafimaad darro. waxay dejiyeen qorshayaal fara badan, waxaanay isticmaaleen tiknolojiyadda casriga si ay dadka singabuur u helaan guryo ay degaan iyo cunto ay quutaanba. caqabadda haysata magaalo kasta oo ku taalla caalamka waxay tahay kaydsiga sahayda ugu qiimaha badan, sahaydaas aadka u muhiimka ah oo ah biyaha. singabuur maalintiiba waxay isticmaashaa 2 bilyan oo litiro biya, iyadoo biyaha ugu badan ee helaanna uu yahay roobka. waxay ku tiirsan yihiinna waxa weeye biyaha ay roobka ka helaan. sidaa awgeed dalkani waxa uu leeyahay biyo mareenno iyo webiyo. si ay biyaha u kaydsadaanna, magaaladani waxay samaysatay 17 biyo xidhaan. saddex meeloodow 2 meelood singabuur waa biyo xidheenno, dhulalkaasoo lagu qiyaaso 400 kilomitiro isku wareega. markay biyuhu soo gaadhaan biyo xidheenka, waxay ka baxaan gacankaa soo geeya goobaha lagu talagalay inay keediyaan biyaha.
habka ay singabuur u samaysay biyo-xidheennada waa qaab aad u cajiiba, laakiin si aad u samayso biyo-xidheenno aad u waaweyn waxaad u baahan tahay dhul ballaadhan. singabuur dhulkeedu ma aha dhul aad u weyn, sidaa awgeed ayay goobaha biyo-xidheennadu u kooban yihiin. iminkana waxaa isbeddeshay cimiladii iyo roobabkii, sidaa awgeed ma aha roobabka da'aya mid la filin karayo ama laisku hallayn karayo. markaa waxaannu samaynay goobo aan ku kaydinno biyaha sida goobtan oo kale. heerkulka dunida oo sii kululaanaya awgeed magaalo kastaaba waxay isku dayeysaa inay la timaaddo xal cusub si ay u hesho biyo nadiifa. wakaaladda adeegga bulshada ee singabuur waxay sii qorshaynaysaa mustaqbalka, waxaanay raadinayaan habab cusub oo ay biyaha u kaydinayaan meel kastoo ay ka helayaan. magaaladani waa inay xal u heshaa caqabado badan oo hor yaalla. tirada dadka ee sii badanaysa waxay keeni kartaa inay guryaha iyo cuntaduba yaraadaan, laakiin dhibaatada ugu weyn ee laga baqayaa waxa weeye biyaha oo yaraada. singabuur biyaha isticmaasho maalintii 2 qaybood marka loo qaybiyo qayb ka mida waa loo soo dhoofiyaa. hase ahaatee 30 sannadood ee soo socda waxay doonayaan inay isku filnaansho ka gaadhaan dhanka biyaha. biyaha ay doonayaan inay isticmaalaan oo ah biyaha badda. qalabkani waa qalab cusub, run ahaantiina waa qalab aad u fudud, waxaana weeyaan qalab laisku hallayn karo. isticmaalkiisuna waa u fudud yahay sababtoo ah waa otomaatig. yukerson waxa uu sameeyey shirkad cusub oo soo saarta biyahaasoo ah kuwo la sifeeyey. marshuucan waxaannu ka shaqaynaynay 2 sano u dambeeyey, waxaanaannu ka soo bilownay meel hoose, iminkana waxaannu gaadhnay meel aad u sarraysa. sidaad arkaysaba maalintiina waxaannu soo saarnaa 113 milyan oo litir. shirkadahan lagu sifaynayo biyuhu waa shirkado cusub oo ay sameeyeen injineeradu. dhismahan ku yaalla singabuur oo uu dhulkeedu yar yahay, cabbirkiisu waa 100 mitir oo ballaca iyo 300 oo dharara, waxaannu leegyahay 3 garoon oo kuwa kubadda cagta lagu ciyaaro oo laysku geeyey. marka la eego dhulka ay ku fadhiyaan shirkadaha caalamka ee noocan oo kale ahi waa mid aad u yar. markii aannu qorshaynaynay aannu dejinnay qorshaha shirkaddan, waxaannu ku dadaalnay inaan wax badan habayno, aanu wax kasta aan u baahannahay deeqsiinno dhismahan. qorshahaana waxaa ka soo baxay shirkaddan iminkaad aragto. inkastoo uu yar yahay dhulka ay ku fadhiyaan shirkadaha sifeeye biyuhu, haddana waxay isticmaalaan teknolojiyadda ugu awoodda weyn la caalamka, sababtoo ah biyaha badda ayay ka dhigaan biyo nadiifa ama kuwo la cabbi karo. shirkaddani waxay qabataa waxa weeye biyaha badda ayay ka saartaa milixda, waxaanay ka dhigtaa biyo la cabbi karo. tuumbooyinkan cadcad shaqadoodu waxa weeyaan inay biyaha sifeeyaan kana saaraan milixda. habkan casrigaana singabuur waxay ugu tala gashay inay isticmaasho mustaqbalka. tamarta ay isticmaalaan shirkadahan lagu sifeeye biyuhu waa mid aad u badan. tamarta ay isticmaalayaan shirkadahani si ay u soo saaraan biyo ku filan singabuur maalintii waxa ay iifin karaan guryaha singabuur muddo qarniya. si loo yareeyo tamarta iyo qarashka ku baxaya shirkadahan sifeeye biyaha, BUB waxay tijaabinaysaa baadhitaan cusub. Ifeegwa waa shirkad loogu tala galay inay sifayso biyaha mustaqbalka. waxaannu tijaabinaynaa qaabka cusub ee shirkaddu ku sifaynaysa biyaha. waxaa la isticmaalaa qalabkan oo loo yaqaano electrodayas si biyaha milixda looga saaro. biyaha milixda lana labada dhinac waxaa laga xidhaa electron. labadaas charge oo kala ah negative iyo positive. electronka negatifeka waxa uu jiitaa curyaha sodium ee positifeka, chlorine-ka negatifekana waxaa jiita electronka positifeka. qalabkani milixda waxa uu ka dhigayaa electrono, sidaasna wuu ku wadayaa ilaa iyo ay biyuhu ka sifaysmayaan. iminka waxaannu wadnaa tijaabadii. maalintiina waxaannu soo saarnaa 38,000 oo litir. waxaananu qorshaynay sidii aan u horumarin lahayn teknolojiyaddan oo aannu soo saari lahayn maalintiiba 1 milyan oo litir. sida ay singabuur u horumarisay guryaheeda, cuntadeeda iyo biyaheedaba waxayna tusinaysaa sida magaalooyinka ka fikira mustaqbalkoodu ay u xalliyaan caqabadaha ka hor yimaada wax kastoo ay ku qaadataba
in la helo dhaqaale sugan oo degdega waa muhiim si looga hortago mustaqbalka waxa dhici doonaan la garanayn dalka keliyaata ee taa fahansanna waa singabuur dhaqaaluhu aad iyo aad ayuu ugu muhiim yahay dalka singabuur 12% dalku wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalaha markaa waxaad arki kartaa inay aad u muhiim tahay in la ilaaliyo dhaqaalahaas loona tartamo sidii loo kobcin lahaa sidoo kalena la keeno fikrado cusub xogayaha shirkadda fintech kana mida dadka qorsheeya dhaqaalaha singabuur waa ninkan oo magaciisa la yidhaahdo sabnaanda mahanti waxa uu isku dayaa in dalkani dhaqaalahaan ula tartamo caalamka taasna waxa ay ku gaadhi karaan hal shay oo ah inay horumar ka gaadhaan tiknolojiyadda isku filnaansho dhaqaale hal shay unbaa lagu gaadhi karaa kaasoo ah tiknolojiyadda 2016 waxay singabuur ku dhawaaqday mashruuca la yidhaahdo uben mashruucaasoo ahaa mid tijaabo ay waday shirkadda fintech bangiga dhexe waxay xogta macaamiisha ku kaydin jireen kombiyuutarada yaalla bangiga taasoo hakarisku ay awood u lahaayeen inay jabsadaan laakiin mashruuca uben diiwaanka waxa uu ku kaydinayaa meelo kala duwan diiwaankaasna nuqul kasta uu leeyahay waxaa la dhigayaa kombiyuutarro yaalla meelo kala duwan oo caalamka kombiyuutarradaasna waa kuwo isla shaqaynaya hubinayana inuu mid kastaa sax yahay haddii wax qalada laga helo nuqul ka midana waa la joojinayaa waxaana lagu beddelayaa nuqul kale oo ay soo oggolaadeen kombiyuutarrada kale haddii laysidhaa ha la jabsadana qofka wax jabsanaya waxa uu ku qasbanaanayaa in kombiyuutarrada wadaagaya halka internet uu mar keliya ta wada jabsado taasina maaha mid macquula shaqada ugu badanaan ka shaqaynaa waxa weeyaan inaan laba dal u kala dirno lacagaha waxaanay qaadataa 2 ilaa 3 cisho inay waddan kale lacag loo diro sidaa awgeed haddaannu isticmaalno tiknolojiyadda la yidhaahdo blockchain waxay noo saamaxaysaa inaan wakhtiga soo koobno aan wakhti yar u kala dirno lacagta laba dal oo kala fog sidoo kale waxaa yaraanayaa qarashka ku baxaya in laga diro lacag dalka loona diro dal kale singabuur waxaa lagu yaqaannaa inuu yahay dal dhaqaale wanaagsan leh waxaannu gacansaar la leeyahay bangiyo fara badan oo caalamka markii ay sameeyeen mashruuca ubenna waxaa kor u kacay dhaqaalaheedii iyadoo ay hoggaaminayso shirkadda fintech dalkani ma laha wax khayraada oo dabiici ah wax kastana waxay u sameeyeen si ay horumar u gaadhaan singabuurna taas way ku guulaysatay waxaanay noqotay dal horumarsan oo in badan lagu dayan doono mustaqbalka fikradaha cusubi waa waxyaabaha ugu awoodda badan leh ee ay ku horumaraan magaalooyinku singabuurna waa dal dadkeeda looga bartay inay soo saaraan shirkado cusub shirkadahaas oo leh hal abuurnimo cusub shirkadahana waxaa ka mid a shirkaddan tiknolojiyadda soo saarta oo magaceeda la ydhaahdo oisbak waxaannu xoogga saarnaa caqabadaha ka jira magaalooyinka sidaan u xallin lahayn gaar ahaan dhibaatooyinka ka jira magaalada ee xagga caafimaadka shirkadaha tiknolojiyadda caafimaadka ee caalamkao dhan waxaa dhaqaalahooda lagu qiyaasaa $350 bilyan oo dollar waxaana la yimaadaan fikrado cusub sida nidaamkan cusub ee irbadaha nidaamkan cusub aynu samaynay wuxuu awood u leeyahay inuu qofka si utumaatikhaana u mudo taasuu tigtoorku kaga maarmayo irbadunbaa lagu beegayaa meeshii lagu tala galay kadibna wakhtigaa lagu buuxinayaa qalabkan waxaa loo adeegsadaa qalliinka balse mustaqbalka robitkan la yidhaahdo alan ayaa qalliinka geli doonaa tigtoorka aadka ugu takhasusay sida loo talo nabarrada laga yaabaa inuu talo nabar keliya ta 150 qodob laakiin qalabkan aadka u casriyeysan waxay ku qaadanaysaa 40 qodob oo keliyata waxaana loo isticmaali karayaa in lagu qodbo nabarro aad u kala duwan sidoo kale shirkadda isbaak waxa ay samaysay tiknolojiyad lagu xallinayay dhibaatooyinka caafimaad ee caalamka ka jira magacaygu waa jiroom waxaan ahaa injineer ka shaqeeya shirkadda isbaak waxaan ahaa injineerka sameeyey afsaabkan mashruucanna waxaannu samaynay 2013 markii sangabuur ay gubanaysay 2013 markii waqooyiga eshiya ay gubanaysay dhir badan oo dalkan ku taalla ayaa gubatay taasoo keentay qiiq aad u weyn taasoo hawada wasakhow ku keentay dukaamadu waxa ay iibinayeen gafuur xidh ay tayadiisu aad u sarrayso laakiin nooca keliya tee wakhtigaasi la helay waxa uu ahaa kan loogu talagalay dadka waaweyn waxaannu iskaan 3D saarnay
850 qof oo isugu jira ciyaal yaryar iyo dad waaweyn. sidaa darteed waxaannu isticmaalnay kombiyuutarro si aan u soo saarno nashqadaha ku habboon. ugu dambayn waxaannu soo saarnay 3 nashqadood oo afxidha oo ku habboon dadka waaweyn iyo carruurtaba. waxaana awoodda la saaray sidii loo soo saari lahaa gafuur xidh waxtar leh. waxaad arki kartaa gafuur xidhku inuu bixinayo midabka basaliga. sidanna waa hab cusub oo lagu ogaanayo in gafuur xidhku uu celinayo xanuunka. marka laga hadlayo dhaqaalaha singabuur, tiknolojiyaddu maaha software iyo hardware keliyata, ee waa shay muhiima kaasoo faa'iido u leh muwaadiniinta. waxaannu doonaynaa inaannu soo saarno waxyaabo faa'iido leh oo dadka wax u taraya. sidaa awgeed waxaannu soo saarnaa waxyaabo badan oo dadku isticmaalayaan. dhaqaalaha tiknolojiyadda singabuur waxay waxtar muhiima u yihiin muwaadiniinta. waxyaabaha ay sameeyeenna waxaa loogu talagalay in la isticmaalo mustaqbalka fog. shirkadda la yidhaahdo transferfy waxa ay samaysay tiknolojiyad wax badan ka beddelaysa laydhka. shirkadda wireless transfer waxa weeyaan waa shirkad doonaysa inay samayso hab la isugu dirayo laydhka wireless. waxaannu isticmaalinaa hirarka si aannu laydhka isugu gudbinno. shirkaddani waxay samaysaa hirarka laydhkaasoo u qulqulaya sida mawjadaha gaadhayana goobtii loogu talagalay. dabgudbiyahan sida khaaskaa loo sameeyey ayaa dabka u beddelaya mawjado, iyadoo la isticmaalayo qalabkan yar oo ay tiknolojiyaddu ku shaqayso. mawjadahan laydhkaa waxaa loo gudbinayaa ateenooyin, kuwaasoo isticmaalaya hirarka idaacadaha. hirarkaasi marka ay ku dhacaan rasiifarrada waxay isku beddelayaan laydhkaasoo awood u leh inuu ifiyo wax kasta oo la geliyo. nidaamkani iminka waa diyaar. iminkana wuxuu baadhayaa signal. mar dhowna wuxuu awood u yeelanayaa inuu iifiyo wixii lagu tala galay. astaanta shirkadda iminka way ifaysaa. wuxuu shidmayaa iyadoo aan la gelin wax xadhiga iyo wax bayteriya. dabku ku shidmayana wuxuu ka qaadanayaa hawada. tusaalahan yar ee iminka inoo sheegay waxayna tusayaa awoodda uu leeyahay mashruucani. haddii ay tiknolojiyaddani aad u horumarto, waxay faa'iido u noqonaysaa shirkad kasta oo isticmaasha laydhka. waxaanay noqonaysaa shirkaddii ugu horraysay ee mawjado daba u dirta si wayarlesa. waxyaabo badan ayaa loo isticmaali karaa. dabkan wireleskaa waxaad awood u leedahay inaad ku isticmaasho wax kasta, meel kastana u diri kartid. waxyaabaha loo isticmaalo waxaa ka mid ah elektarooniga iyo qalabka loo isticmaalo qalliinka iyo waxyaabihii la halmaala. shirkadaha soo saara tiknolojiyadda ee singabuur waxay la imanayaan fikrado cusub, waxaana suurtagalay in wax kastoo mustaqbalka la saadaaliyaa uu hirgalo. magaalooyinka mustaqbalka isku wada xidhmi doona ee isticmaalaya tiknolojiyadda casrigaana, wax kasta oo nolosheenna la xidhiidha waxaa beddeli doona tiknolojiyad cusub. in mustaqbal fiican loo diyaariyo jiilka soo socdana waa waxyaabaha ay ku fikirayaan dadka waxbartay. singabuurna jiilka soo socda iyagoo yaryar ayaa wax la sii baraa. ciyaalkana waxaa la baraa agabka tiknolojiyadda si ay hadhow ula qabsadaan, iyadoo wax kasta looga bilaabayo bilowga iyo sida ay wax kasta isugu xigaan. siday wax isugu xigxigaan laga yaabaa inay innaga inoo fududdahay, laakiin iyaga way ku adagtay sida waxa horreeya iyo waxa dambeeyaba. ciyaalow, halkaasaynu tegaynaa, kadibna waxaan soo aruurinaynaa agabka ku ciyaarteen, kadibna waxaanu ku ridaynaa salladahan yaryar ee sidataan. waxyaabahan ogaanay waxaa ka mid ah inay wax badan ka baran karaan agabkan ay ku ciyaarayaan. waxay wax ka baran karaan sida mushkiladaha loo xalliyo, la xidhiidhka dadka, iyo weliba luuqadaha, iyo sidoo kale siday wax kastaa u kala horreeyaan. meeshay ku ciyaaraan brogaraamkan waxaa yaalla 3 agab oo tiknolojiya. waxaa ka mid ah looxan la yidhaahdo b, kaasoo isticmaalkiisuna aad u fudud yahay. waxa uu leeyahay 4 boton oo 4 jaha lagu kala hago. laga yaabaa inay dadku is yidhaahdaan waa agab aad u adag,
laakiin marka hore ciyaalku agabkan waxay isugu beegayaan siday isu leeyihiin kadib marka ay isku beegbeegaan ayay iskaan marinayaan haddii ay isku beegi waayaanna iskaanku ma shaqaynayo waayo waxau leeyahay meeluu ku dhammaadiyo meeluu ka bilaabmo markaa ciyaalku way ku celcelinayaan kadibna way tijaabinayaan inuu shaqaynayo iyo in kale qalabkana casriga ah ee ciyaalku ku ciyaarayaan waxa uu saamaxayaa inuu u fududaado marka ay baranayaan tiknolojiga taasina waxay singabuur u saamaxaysaa in jiilkeeda soo socda ay noqdaan kuwo leh xirfadihii aasaasiga ahaa ee tiknolojiyadda iyagoo aan wakhti badan ku bixinayn inay wax daawadaan qaabkan cusub ee waxbarashada ahina waxay aad muhiim ugu tahay waalidka sababtoo ah waxa ay ka caawinaysaa inay ciyaalkooda u sii diyaargaroobaan meelihii ay ka shaqayn lahaayeen mustaqbalka anigu 3 wiil baan dhalay oo da'doodu tahay 11 12 iyo ka u yaroo 4 jira anigu waxaan ka shaqeeyaa dhaqaalaha gaar ahaan shirkadda fintech mar kastaba waxaan ka fikiraa sidii ay ciyaalkayga ula qabsan lahaayeen wax kastoo isbedelaya iyo sidoo kale mustaqbalka dhow aniga waxay ila tahay in agabkan ciyaalku ku ciyaaraya ay mustaqbalka ka caawin doonaan goobaha ay ka shaqayn doonaan waayo ciyaalka bilowga waxaan barnaa xalinta mushkiladaha sida ay ula xidhiiri lahaayeen dadka kale iyo weliba barashada luuqadaha barashada tiknolojiyaddu ma aha shay ciyaalka oo keliya ta ku adag dhammaan dadka waaweyn ee ku nool caalamku barashada tiknolojiyaddu waa shay aad ugu adag singabuurna waxay isku dayaysaa inay mushkiladda xal u hesho iyadoo xoogga saaraysa in dhammaan dadka ku nool singabuur ay tiknolojiyadda bartaan si loo waayo qof aan waxba ka garanayn tiknolojiyadda tiknolojiyadda hadda jirtaa waa mid aad u horumartay dadka da'da waaweynna way ku adag tahay mana fahmayaan sida ay u shaqayso tiknolojiyaddani 3 sanno ka hor carruurtayda ayaa i keentay moobiladan casriga bilowgii waxba kama garanayn sida lambarka loo garaaco mooyaane master tan waxa uu tiknolojiyadda ka bartay meel dadka waaweyn caafimaadkooda lagu daryeelo sidoo kalena tiknolojiyadda lagu baro waxaan whatsappka ka bartay sida loo diro fariimaha sidoo kale waxaan kula hadlaa dadka jooga dalalka fogfog sidoo kale ablicathonka la yidhaahdo wechat ayaan ka helaa fariimaha sidoo kale waxaan kula hadlaa asxaabtaydii joogtay dalalka kale 50 sanno ka hor haddii aan doonaya inaan asxaabtii la hadlo waxaan u diri jiray fariimo waraaqa inaad moobil isticmaashaana wakhtigaa wuxuu ahaa qaali markaad farriin dirtidna waxay qaadanaysay 4 cisho ama wiig wakhti dheerna waxaad sugaysay jawaabta laakiin iminka moobiladan la isticmaalo hadda awgeed qof dal kala jooga ayaad la hadli karaysaa wakhti kooban gudahood moobiladanna iminka waxay noo saamaxeen inaan qofka la hadli karayno wakhti dheer isagoo weliba muuqiisuna kuu muuqdo codkiisuna uu safeex yahay singabuur waxay ku foogan tahay sida ay bulshadeeda mustaqbalka ugu diyaarin lahayd waxaanay doonayaan bulshadeedu inay noqoto bulsho tacliin leh oo isku wada xidhan haddii ay dhacdo in bulshada la horumariyo waxa ay sababaysaa in dalka mustaqbalkiisu uu horumaro singabuurna xilligan aynu joogna ayay gaadhay horumarka dal ahaan waxaanay samaysay qaab nololeed cusub oo loo qushuucay waxaa loo tartamayaa mustaqbalka kaasoo ay hoggaaminayso tiknolojiyaddu 10 sanno ee soo socdana waxa ay bulshadeeda u diyaarisay inay la jaan qaadi karaan tiknolojiyadda casriga fikradaha cusub ee ku aadan tiknolojiyadduna waxay badbaadin karaan nafo fara badan singabuur waxay hirgelisay tiknolojiyad casriya taasoo caawinaysa cid kastoo u baahan caawimo annagu waxaan u suurtagelinay ciyaalka iminka dhashay iyo kuwa dhowrka sanno jira inay helaan hurdo wanaagsan oo ay seexdaan ii warrama reerku muxuu sheegay soo dhowow faraankow waan dhowahay waxaannu samaynaa qalabkan ayaan ilmaha yar dul seexinnaa markuu ku dhowaad hal marar jiifo waxaa noo soo dhacda farriin waxaananu ogaannaa ilmaha hurdadiisu heerka ay marayso badanaa marka ay ciyaalku hurdaan qaabka ay u neefsadaan ma aha qaab saxa waayo way neefsadaan haddana way istaagaan kadib ayay hawada qaataan dhacdadanoo kale ciyaalku marka ay dhashaan 2% ayay ku dhacdaa laakiin marka ay sannad kor u dhaafaan 60% ayay sidanoo kale ku dhacdaa sababada haddii ay si talantaaliya u shaqeeyaan waxay sababi kartaa inay hawada soo gelaysaa yaraato taasina waxa ay halis ku noqonaysaa caafimaadka ciyaalka iyo habka ay u korayaan qaabkan oo lagu isticmaalayo internetka fiber optiga u shaqeeya
ayaa lagu kaantaroolayaa waxaana loogu talagalay inuu qof keliyaati isticmaalo. waxyaabaha igu kalifay qalabka noocan oo kale inaan sameeyaa waxa weeye muddo imika laga joogo 24 sanno. ilmahan dhalay ayaa ka soo horreeyey xilligii caadiga ahaa ee carruurtu ku dhalan jirtay. xilligaana may jirin wax qalaba oo lagu daryeelo ciyaalka sidaasoo kale ku dhasha. bishii koowaad u dhashay anigii iyo gabadhaydu isku qol maannaan seexan ee kolba qof ayaa isaga la seexanayay oo xaaladdiisa la soconayay. sidaa awgeed waanan isbeddeli jirnay oo kolba qof ayaa la joogi jiray ilmaha yar. xaaladdaana waxaannu ku jirnay muddo aad u dheer. markaa markii la sameeyey qalabkan ah tiknolojiga casriga ah ee ku shaqeeya faybarobtiga, waannu garanaynay faa'iidada uu leeyahay, waayo marxaladdaasoo kale aniga ayay soo martay. inankayagu imika wuu caafimaad qabaa. inankayagu iminka wuu caafimaad qabaa, taana aad ayaan ugu faraxsanahay. in la sameeyo tiknolojiyad casriya oo dadka ka caawinaysa caafimaadka, sidoo kale magaalada waxay ka caawinaysaa inay dhisanto. bulshada Singapore waxay magaalada ka dhigeen cagaar, goobaha ay dhirtu ka baxaanna way ilaashadaan. goobaha cagaaran iyo beeraha la ilaaliyo ku dhex yaalla magaaladu waxay iyaguna ka qayb qaataan tiknolojiyadda casriga. waxyaalahan isticmaalno waxaa ka mid ah applicationka la yidhaahdo SG Bio. waa application bilaasha oo qof kastaaba la soo degi karo. applicationkana waxaad soo dhigaysaa waxyaalaha aad ku aragto Singapore sida beeraha iyo xayawaanada. applicationkan waxaanu isticmaalnaa sidii aan u dejin lahayn qorshahaasoo ah ilaalinta dhirta iyo daryeelka xayawaanka. taasina waxay noo saamaxaysaa inaynu khayraadkeenna ilaashanno. nidaamkan wuxuu dadka Singapore ku dhiirigelinayaa inay ka qayb qaataan sidii loo daryeeli lahaa loona ilaalin lahaa dhirta iyo xayawaanka kala duwan ee ku nool magaaladan. halkan waa meel kayn oo kale oo weliba cagaaran, waxaana ku nool digaag. weliba waa qaar nadiifa oo fiican, soo saa maaha. badanaa kayntan aanu dhex soconnaa, laakiin maalintii un baannu soconnaa. habeenkiina waxaan tagaa gurigayga si aan tiifiga u daawado. badanaa wakhtigayga waxaan ku qaataa telefoonkayga, marna waxaan ka dadaawadaa youtube-ka, inta kalena geem baan ku ciyaaraya. mashruucani waa mashruuc ka caawinaya muwaadiniinta Singapore inay ilaashadaan khayraadkooda. sidoo kale mashruucani waxa uu dadka u saamaxayaa inay ku dhex noolaan karaan goobo cagaaran. Singapore waxay leedahay dhul aad u yar, markaa waxaynugu waajibaa inaynu ilaashanno khayraadka dabiiciga ayay leedahay. waxaanaynu adeegsanaynaa tiknolojiga casriga ah si aynu u ilaalinno xayawaanada dalka ku hadhay. wakhtigan aanu joogno bulshadu waxay ku soo qulqulayaan magaalooyinkuna mustaqbalka waxa ay yeelan doonaan caqabado aan wanaagsanayn. haddii la horumariyo tiknolojiyadda casriga waxay naga caawinaysaa qaabnololeedkeenna, sida goobaha aynu ka shaqayno iyo sidoo kale goobaha aynu wax ka baranno. Singaburena wakhtigan aynu taagannahay ayay maraysaa mustaqbalkaa la rajaynayo. annagu waxaan aaminsannahay inaynu qayb muhiima ka nahay mustaqbalka Singapore ee dhismaya, kaasoo lagu kalsoonaan karayo oo aan isbeddelayn. dadka hadda jooga iyo kuwa mustaqbalkaba faa'iido u noqonaya. haddii mashruucani ka fula Singapore, caalamka oo dhanna waa lagu samayn karaa. waxaannu aad ugu faraxsannahay shaqadanaan qabanno maalin kasta, waayo waxaannu abuuraynaa isbeddel cusub. waxaannu doonaynaa inaannu helno jaayisada Nobel Prize-ka, waayo bila'aadanka ayaannu abuuraynaa fursado. fursaddanna waxaannu uga faa'iidaysannaa si aynu ugu diyaargarowno mustaqbalka. tiknolojiyadda dalkani aad bay u horumaraysaa. 50 sannee soo socda gudahood iminka sawiran kari maayo siday noqon doonto, laakiin waxay la tahay inay noqon doonto shay aad u faa'iido badan.